wararka naga soo gaaraya gobolka gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa ku waramaya in ciidamada gumeysiga dalka Kenya maanta dad horleh ka afdubteen duleedka degmada Cilwaaqi gobolka Gedo. wararka naga soo gaaraya halkaas ayaa ku waramaya in ciidamada Kenya barqanimadii maanta dad ay ka afdubteen duleedka degmada Cilwaaqi gobolka Gedo kuwaas oo la dhaqaaqay xadka Soomaaliya oo la wadaago dalkaasi Kenya. ciidamada Kenya ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay dadka ku nool gobolka Gedo waxay ku hayeen dhibaatooyin kala duwan kuwaas oo isugu darayay xarag iyo dil. mana jirto cid gaar ah wax uga qabatay ciidamada Kenya oo dhibaatada ka geysanaya gudaha gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. shacabka oo barqanimadii maanta dibadbaxyo dhigay ayaa dalbaday in gabi ahaanba la soo daayo dadkii dhawaantan ciidamada Kenya ay ka afduubteen gobolka Gedo isla markaana ay xorriyadoodu ay dib u helaan. dadkan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in dadkii dhawaan ay afduubteen ciidamada dalkaasi Kenya qaarkood midkood laga helay meel aan sida ugu fogeen degmada Cilwaaqi gobolka Gedo. sidoo kale dibadbax ayaa maanta waxaa loogu soo horjeeday maamulka Jubbaland waxaana ay sheegeen in marnaba maamulka Jubbaland cagta uusan soo saari doonin degmada Cilwaaqi gobolka Gedo isla markaana Cilwaaqi ay tahay meel ka madax banaan maamulka Jubbaland ayay ku eedeeyeen shacabka inaysan waxba u qaban dadka ku nool degmada Cilwaaqi gobolka Gedo xilli dhawaan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe guddi u magacaabay kaas oo ah xaqiiqadaadinta weerarkii dhawaantan ciidamada Kenya ee dadka ay ku laayeen ee degmada Cilwaaqi kaas oo loo magacaabay wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ah isla markaana loo sheegay inuu yahay isla markaana loo diray in uu xaqiiqda ka soo raadiyo isla markaana u korgalo wixii sababay weerarkii dhawaantan ka dhacay duleedka degmada Cilwaaqi gobolka Gedo. shacabkan ayaa sheegay in maamulka Jubbaland iyo Cabdirashiid Janan ba ay yihiin kuwa adeegaya dowladda Kenya isla markaana aysan cagta soo dhigi doonin degmada Cilwaaqi gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. isku soo wada duubo gumaadka ciidamada Kenya mudooyinkii ugu dambeeyay ka geysanayeen degmada Cilwaaqi gobolka Gedo ayaa soo korortay waxaana weli jirin tilaabo cad ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya oo mas'uuliyad ka saaran tahay shacabka ku nool degmada Cilwaaqi gudaha gobolka Gedo.